Mike wuxuuba ma sito xilligan uu wajahayo boqorka wuxuushta oo aanan ka ahayn tiishka musqusha. Haddii libaaxu soo boodo, wuxuu doonayaa inuu madaxa kaga tuuro tiishka uu gacanta ku sito, isagoo filaya qaabkan inay libaaxa cabsi gelin karto, isaguna waqti uu gaariga dib ugu cararo heli karo. Laakiin wuxuu dareensan yahay in qaabkan had iyo jeer aysan shaqayn karin. waa mid dibdib u siqaya, taasoo dhiirigelin karta libaaxa, noloshiisana khatar gelin karta. marba marka kale, libaaxu waa mid seynta ku garaacaya goloomihiisa, waana calaamad muujinaysa in libaaxu weerar diyaar u yahay. wuxuu ku jiraa xaalad difaac iyo weerarba leh, wuxuuna qarka u saaran yahay inuu ku soo hado Mike. libaax kale ayaa gadaal ka soo muuqanaya. haddii uu ku soo biiro iska hor imaadka, Mike wuxuu geli karaa xaalad geeri ah, sababtoo ah wuu xayirmi karaa, meel uu u baxsadana ma laha. markaan Mike wuu ka baxsanaya iska hor imaadka, isagoo aynan wax dhib ah soo gaarin. laakiin maxaa dhici kara marka xigta? marka la eego caqliyadda Mike, la kulanka boqorka wuxuushta, xiisuhu waa mid ka sarreeya caqliga.